السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaanu dul joognaa caawa oo aanu soo booqanay buurtii quraanka ku soo degay taasoo la yiraahdo Qaarul Xira. hadda saa u jeedaan waxaanu saaranaa buurta dusheedii halkaasna waa xaramkii oo Kacbada ay ku taalay oo halka nooga muuqda. insha Allah biidnillaahi tacaala barnaamijkii waxyiga iyo soo degay oo dhameystiran insha Allah ayaan idin faahfaahin doonaa. la socosho wacan insha Allah. إن شاء الله بإذن الله تعالى قارو الحرة وحلو مرة لوقا كان لوق آدو عريريا مركز صباح إن شاء الله بإذن الله وأوجد بيننا وحنا سكودين هنا إن شاء الله أي نمرنا مركز تعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى نمرنا أي سكودين هنا طبعا ولي واسيس عنا ولي ماشي وقرآن كسر دقي ولي ما إننا قارن صوصعه صوصعه walaalayaal meeshaan hadda aan ku suganahay ama godkaan hadda u jeedaan waa god waxa weeye magaciisa la yiraahdo Qaarul Xira ayaa la yiraahdaa. rasuulku sallallahu alayhi wasallam intuusan nabi noqon ka hor ayuu meeshatan iska imaan jiray isagoo ka fakaraya ilaahay samadan iyo dhulkaan khalqay iyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala sida uu koonkaan u khalqay isagoo ka fakarsan habeenada kamid ah oo ay tahay bil Ramadaan ayaa waxa uu yimi halakan isagoo jooga طبعا nabigu markuu halkan imaan jiray muddo ayuu iskaga dhex jiray dhowr maalmood ayuu iska joogi jiray raashinkiisa iyo sharaabkiisana hore ay u soo qaadan jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam isagoo halkan iska joogo oo iska cibaadeysanaya ayaa waxa uu yimi malaku jibriil ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo nabiga sallallahu alayhi wasallam oo u soo diray markaas jibriil waxa uu ku yiri nabiga sallallahu alayhi markuu u yimi ayuu wuxuu jibriil nabiga ku yiri iqra ayuu ku yiri markaas ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri أخي بكوير والالكيو ما أنا بقارئ يا أخي بكوير وحنا ما أخري وحنا ما قرأ مركز كوير مرلبات أيوه كوير اقرأ وأخرنا ساي أخري أيوه كوير مركز كوير ما أنا بقارئ يا أخي مركز كوير هذا اقرأ وأخرنا ساي أخري مركز أيوه وحوي وأخري جبريل ووحو كوير وحتى هذا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أيوه كوير رسولك صلى الله عليه وسلم مركز رسولك كدب يري أو حفظي marka ay arintaas dhamaatay kadib ayuu nabigu soo baqsan oo argagaxsan oo gariiraya ayuu buuratan ka degay kadibna waxa uu tagay xaaskiisa Khadiija ayuu u tagay ilaahay raaliha ka noqday isagoo wuxuu leeyahay idaboola isagoo leh oo baqsan ayuu gurigiisa tagay markaasay Khadiija ilaahay raaliha ka noqday nabiga ay dajisay oo tartiib ula hadashay oo waxa weeye markii ay baqdintu ka baaday kadib wuxuuga degayna waxa ay ku tiri ii waran maxaad soo aragtay rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu sheegay wuxuu la soo kulmay iyo wixii uu arkay iyo wixii uu maqlay ayuu Khadiija u sheegay markaas Khadiija ilaahay raaliha ka noqday waxa ay ku tiri walaalkayna adeerkayow waxaan kugu bishaareynaya oo ilaahay kaaga rajeynaya inaad noqonaysid nabigii ummadda tan inaad noqonaysid ayaan waxa weeye ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaaga rajeynaya waa calaamado cadeynaya inaad nabi ummadda tan u noqonaysid qof aqli badan oo raaliya oo naxariis badan oo markastaba xikmad leh ayay Khadiija ilaahay ka raali noqday sidaas ayaana ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo quraanka ku soo dejiyay maantana adduunka oo dhan waxa weeye quraankaas aynu wada haysano meesha uu ka bilowday oo waxa uu ku soo degay waa halakan ama waa Qaarul Xira oo meeshan hadda aan ku suganahay marka Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa waxa idin ka codsan in aan la dayicin rasuulku markuu quraan ku soo degay dabcan 40 jir ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam إن شاء الله بإذن الله تعالى إلهي وحن أقبرينا قف كست أو مسلنا أو كتابك إلهي حفظية أو قرآنك إلهي حفظية إنه إلهي أقدق قرآنك كيو شفع قادلها إنه إلهي سبحانه وتعالى أقدق لها قرآنك كيو وحوي جنة أقد بلها ودرجة أقصرية وكفول لها أيان الله أقرجينها سبحانه وتعالى قف كست أو فيديو كان ولا ليس كلا أسي شرقرية أو مسلمين تجارسية أو تصمي شيء وحي وكسر دقينا إلهي وحن أقبريها سبحانه وتعالى إنه حافظ القرآن كدقه وإلهي أجري حسنات وكسيه
khayrka iyo dacwada fidinteeda ayaan Allah subxaanahu wa tacaala uga rajaynaya dhammaantiinna waxaa idinka codsanaya inaad quraanka ilaahay dayicin oo quraanka ilaahay la akhriyo oo maalin ilaahay keeno la isku dayo inaad xataa waxa weeye dhowr aayadood aad kalaamka ilaahay walaalayaal ka akhridaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar iyo xasanad alla soo koobi karin ha idinka siiyo inta ay daawanayseen fideogaana usii shargar walaalahaaga kaloo muslimiinta ilaahayna inagii kulligeenba haynoo ka dhigo sadaqa jaariya cid kasta oo qisadan waxyiga ah waxa weeye barnaamijkeena kan ku daawata waxaana weeye khayr baa idin rajaynayaa sidaas iyo assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.